السلام عليكم dadka qaarkood waxay ku leeyihiin gabadhaas ama wiilkaas ima yaqaano ilaa markuu dan leeyahay mooye laakiin waxa ka fiican waxay tahay inaan dhahno waxa mahad iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala allahaas oo igu karaameeyey in dadka danahoodan u fuliyo sababtoo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ahabbu an-naas ila allah ilaahay agtiisa wuxuu ugu jecel badan yahay waxay tahay waa dadka wax anfaca haddaba wanaag bixi dadka wanaag u sameey anaka suugni inay ku maajeliyaan wanaagaaga xitaa hadday iloobaan oo ay xiliyada adag ku yimaadaan ilaahay samadiisa lagama iloobayo bixi wanaag samee wanaag saa ayaa farxad lagu helaa noqo mid dadka anfaca sababtoo ah ilaahay ayaa ku jeclaanaya adiga haddaa dadka wax u tarto aad wax u qabato u naxariiso dadka wanaag u samee adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kugu naxariisanaya oo wanaag kugu sameynaya walaasheedii ama walaalkaygiyo waa fursad aan ka faa'iidaysano dhammaanteena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وولالكن يوسف محمد وإذن لجع لبدا داروت